Asalaamu calaykum walaalayaal. Nuursha Academy waxa ay idiin soo gudbinaysaa mowduuc ku saabsan saamaxaadda ama iscafinta. Ilaahay subxaanahu wa tacaala bini'aadamku wuxuu siiyey caqli. Caqligaas ayaa keenay in aan mas'uuliyadda qaadno. Qofba qofka uu ka caqli badan yahay waa ka mas'uuliyad badan yahay. Haddii caqliga la waayo, sidoo kale mas'uuliyaddina waa la weynayaa. Tusaale, carruurta mas'uuliyad looma dhiibo maxaa yeelay caqligooda weli ma korin. Si kastaba ha ahaatee, waxaan sameynaa qaladaad si kama ah oo aanan war ka haynin, mararka qaarna si ula kac ah ayaan qalad ugu sameynaa kuwa kale. Waxaa jirta oraah caan ah oo uu sheegay nin la yiraahdo Alexander Pope oo tiraahda to err is human, to forgive is divine, oo macnaheedu tahay qaladka ibnu aadam ayaan u nahay, cafiskuna waa rabbaani. Yacni waxaa laga wadaa dadka oo dhan way dambaabaan, qaladaadna way sameeyaan, ilaahayna wuu cafiyaa marka ay soo noqdaan. Dadkana marka ay iska cafiyaan dadka kale ee qaladka ka galay, waxa ay sameeyeen ficil uu alle jecel yahay oo ah cafin, waana arrin rabbaani ah oo Rabbi ayaa sameeyo cafinta. Markaa dembiga ibnu aadam ayaan u nahay, cafintuna waa rabbaani. Haddii aan ibnu aadam nahay, waxa aan nahay mas'uuliyiin. kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raaciyatihi. Sidoo kale waxaan sameynaa qaladaad, waxaana si joogto ah ugu baahannahay saamaxaad. Islaamka waxa uu ka hadlay laba qaybood oo saamaxaad ah ama cafin. Qaybta koowaad oo ah dembi dhaafka Ilaahay subxaanahu wa tacaala, iyo qaybta labaad oo ah cafiska aadanaha dhexdooda ay iscafiyaan. Haddii aan ku horeeyo tan Ilaahay subxaanahu wa tacaala, Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kan ugu cafinta iyo dembi dhaafka badan. Waxaa qur-aanka lagu sheegay magacyo badan oo alle subxaanahu wa tacaala leeyahay. magacyadaas qaar ka mid ah waxa ay la xiriiraan Ilaahay naxariistiisa iyo dembi dhaafkiisa. magacyadaas waxaa ka mid ah Al-Ghafuur, kan ugu cafinta badan. Al-Ghafuur waa midkan cafiyo inta aan filayno in ka badan. waa midka marka aan toobad keenno naga aqbalo oo na cafiyo. waa midka ceebteena asturo oo dembiyada aan samaynayno waxyeeladooda naga ilaaliyo. marka anaga oo ay dunuub naga buuxdo ayaan iska soconaa, weliba xishood la'aan iyo in aanan dareemin wax dembi ah. dhib ma laha inta uu la egyahay dembigaaga iyo sida uu u weyn yahay. waxaa kuu jooga Al-Ghafuur, Allah oo ku leh udcuunii astajib lakum, ibarya aan idiin ajiibe. sidoo kale waxaa ka mid ah magacyada Ilaahay Al-Cafuu, Al-Tawaab, Al-Xaliim iyo kuwo kale oo badan. haddii qaybta labaad aan ayadana wax ka taabto oo dadka dhexdooda inay iscafiyaan, saamaxaadda dadka, horta waxaad ogaataa dabciga bini'aadamka ayaaba waxaa ka mid ah inay dadka murmaan, xitaa haddii ay hal hooyo wada dhashay. haddii dhib laguu geysto, dhibkaas dhib la eg xaq ayaad u leedahay inaad geysato. qofka laakiin yacni qofka qaato cafiska iyo inuu iska cafiyo dadka kale, qofkaas ajirkiisa Ilaahay unbuu korkiisa ahaaday. mowduuca intaas ayaan kusoo koobaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.